Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan. Muuqaaladii hore oo aan kaga soo hadlaynay social practice-ka waxaa ka mid ahaa hadda soo daawatay muuqaal aan si gaara ugu soo fiirinay waxa loo yaqaan adjustment-ga ama adjustment color adjustment marka la sameynayo kalarada layerka aad kalarka wax ka bedelaysa objectiga meesha kugu jira aad u baahan tahay inaad kalarka wax ka bedeshid isagoo guud ahaan ama qayb ka mid ah intaad gaar u select garaysid markaad ka bedeli kartid waxa loo yaqaan kalarka. Muuqaalkan waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa adjustmentigii hore mid la mid ah oo la yiraahdo adjustment layers laakiin ka faa'iido badan. Kii hore wuxuu kalar ka bedelayay image-ko dhammaystiran isagoo qaab ah laakiin wuxuu lahaa hal cillad. Halka cillad waxay ahayd inaan hal mar haddaan kalar ka bedelno inaan flexibility dama lahayn oo kalarkaas uu saa uga bedelmay inagoo undo ka dhahna ma ahe. Laakiin adjustment layers waxay faa'iido dheeriya inoo ku leedahay inay inoo samayn karto kalarkii aan bedelay inaan dib u bedeli karno ama ka saari karno inagoo shaqadayna wadana haddaan rabnona aan editing ku samayn karno ama si kalarkii dib u sii waxaan ku dhahay update garan karno wax kale ka bedeli karno. Marka si aan u wada socono waxaan u baahanahay inaan soo furno documentigan ugu talagalay tutorialkan waxaan tagaynaa folderkii markaan tagno waxaan kasoo dooranaynaa wax loo yaqaan essential practice waxaa ka dooraysaa adjustment layers marka ka dooratid waxaa kusoo furmaya dabcan file caynkaas faylkaasi marka kusoo furmo waxaan u baahanahay marka inaan fahanno adjustment layers qaabka uu samaysan yihiin iyo qaabka loo saaro. Adjustment layers sidaan marka ugu shaqeyno waxaan u baahanahay inaad soo furtid properties panelka wax loo yaqaan Photoshop-kaaga saa usoo furtid marka haddii uusan meeshan kaaga muuqan waxaad tegi kartaa meesha loo yaqaan Windows then waxaad tigta soo saaraysaa property marka tigta soo saartid halkaas kaaga soo baxaya si banaanka u soo goo si aan u aragno isbedelka iyo waxaan sameynayno nooc yahay marka inoo saar. Marka waxaan sameynaynaa layerska haddaad si fiican u fiirisid marka waxa halka kaaga muuqda wax cusub inaan horey u arki jirin. Layerkii raster image ku samaysan waxaa kor ka saaran waxay ku qoran tahay black and white waa adjustmentii hore aan sameynaynay laakiin oo loo bedelay adjustment layers si layer ahaan loo sameeyo. Wuxuu awood u leeyahay marka inaad visibilities iska qarin kartid iyo inaad labadaba aad soo saari kartid oo iconkaas aad ka furi kartaa. Haddii aad fiirisid marka kan ka koreeya wax waa smart object mana lahan maxaan ku raahday wax adjustment layers laguma sameyn. Marka si aan isagana ugu darno maadaama markii hore aan adjustmentiga joognay caadiga ah image aan tagay adjustment hala ka dooranayna inaan awood u lahayn inaan smart object-ga ku darno wax adjustment layers waxayna siinayaan inaan smart object-ga adjustment saari karno oo color ka bedeli karno oo u samaysan karno colorkii anagu desire garano ku qanacsanahay. Marka haddaad fiirisid layerska qaybta hoose halka waxa ku yaala batamo dhowr ah batamadaas waxay noo suurtagelinayaan mid walba shaqo gaar ah. Haddaan select gareeyo tusaale smart object-ga batanka ugu horeeya wuxuu awoodaysi inaan delete karo wada ka saari karo haddaan click siiyo waa baxaya kan new layer weyn oo tawaarka jirnay kan waxa group aan qortaan doonaa click siinaa kan marka batankan baan u soconaa waxa ka abuuri karnaa halka adjustment-ga haddaad furtid waxa la kaaga soo baxaya waxaan ku raadaya adjustment-ga aan image ku arki jirnay baad halkan ka helaysaa kuwa la mid ah sidoodii alle brightness baa ku jira waxa ku jira hue saturation baa ku jira color balance black and white baa ku jira waxa ku jira waxa loo yaqaan post trace waxa ku jira invert oo color kale threshold ku jira selective color-kii hal color aan ku dooranaynay baa ku jira waxaas oo dhan baa ku jira. Marka si aan u doorano si aan adjustment-ga u saarno waxaan u baahanahay in aan doorano layerkan u baahna inaan adjustment-ga soo sameeyno properties panel-kana si fiican u fiiri wax iska bedela haddaan click siiyo oo tago adjustment layers button-kii hoose click siiyo halka waxaan ka dooranayaa marka tusaale ahaan waxaan ka dooranayaa hue and saturation oo kale baan ka doortay hue and saturation markaan doorto halka waxa iga soo baxaya properties-ka meeshii aan ka bedeli ka edit gareyn lahaa. Layerkiina waxa fuulay haddaan si fiican u fiirsi layerka waxa fuulay adjustment-kii kore oo halkaas kaaga muuqda. haddaan marka bedelo u fiirso si fiican u fiiriyo markaan bedelo kana bedelo waxa isla bedelmaya documentiga oo dhan buu saameynaya maadaama uu layerku koreeyo. Markaas aan uga saarno hal layer uga dhigno haddaad fiirisid buttonka properties meesha hoose wax kaaga muuqda
meel yar oo calaamad hoos u jeeda oo falaar hoos jeeda leh haddaan click siiyo dabcan waxa iga dhigayaa adjustment wuxuu ii saarayaa layerkaas oo kaliya markuu ii saaro haddaan wax ka bedelo isagun bay saameynaysaa maaha documentiga inta kale ma saameynayso. qaabkaas baan marka hal layer gooniya u saari karaa. adjustmentigana sida guud ahaaneed waxaan u saari karaa inaan layerkii doorto kadib aan meeshaan kasoo doorto maxaan ku rahday adjustments. marka adjustmentiga aan u baahanahay ayaa samayn karo. waxaan awood ku siinaysaa adoo bartaa joogo inaan dhowr adjustment saari kartid one layer. tusaale ahaan waxaan saarnaa marka hore hue saturation waxaan ku darnay selective color haddaan doorto tusaale ahaan casaankaba aan casaankii ruuxiisa wax ka bedelo oo binke ka dhigo ama wax ka bedelan markaas wuxuu noqonayaa inaan meeshii saaray laba adjustment oo ah wax ka badan one adjustment. ha ilaawin mar walba waxay leedahay toggle aad ka bedeli kartid adjustmentiga ka qaadi kartid si normal ka ahayd aad ugu soo laaban kartid. qaabkaas si guud loogu saaraa adjustment layerska. marka hore stepska aad maraysa waxay tahay inaad layerkii dooratid kadib aad ka fiirsato soo maxaa ku rahday adjustment ku dhufatid adjustmentiga aad dooratid markaas aad qaabka ku samayn kartid. faa'iidada uu kii hore kaga duwan yahay waxay tahay kan waa edit garay karnaa. wuxuu kale awood inoo siinaya inaan adjustment ku samayno smart objectigii markaan imageka adjustmentigiisa joognay inaan wax adjustment ku samayn karin. qaabkaas marka wax loo sameeyaa adjustmentiga marka la joogo Photoshopka. marka adjustmentiga intaan si kooban baan hadda u sharaxnay laakiin hadda practice u baahan tahay inta in ka badan waxay noqonaysaa inaad samaysid waqti ku bixisid adjustmentiyo kale oo kalarada adjustmentiyo badan ku dartid one layer ka saari kartid 4-5 adjustment. inaad mar walba iska hubiso way fiican tahay inaad adjustmentiga si gaar ah u saaraysid oo aadan documentiga oo dhan adjustmentiga saarayn aadan saa kalarkii u apply garayn. intaas ayaan kusoo koobi doonaa muuqaalka adjustmentiga kaga hadlaynay imageka si adoo layers ka jooga aad uga bedeli lahayd kalarka. muuqaalka ku xiga waxaan kaga hadli doonaa dokumentiyadii aan soo samaysanay waxaan soo design garaysanay oo dhan qaabkan u save garaysan lahayn optiono fara badan iyagoo inagoo dooran karna waana qoto xiiso leh.